badan waxay adigoo ilma wana kuwa baabiyeen markaad orada dhaqaaqdo inaadan bataa u xuween intaadan baan la iqilada anigu ka tagi lahaa adduuniya aakhiraba maanta sidoo Ustaad Axmed noo sheegay waxaan iskugu nimid xalfada qalin bedelashada ardada ka qalin bedelta iskuulka Kalkaan kuwa heer ka gudbay heer kale u gudbay noocyada kala duwan ardadaas oo qaar ka qalin jibsheen maadada caafimaadka maadooyinka xisaabaadka iyo luqadda Ingiriiska ardada iskuulka qalin jibida Kalkaan waa arday gaarida 27 arday waana dibcadii saddexaad ee iskuulka ka qalin jibida aadan ugu faraxsanahay dhamaantiin aad ka soo qayb gashaan boqolkiiba boqol waa mahadsantiin ilaahay shukran waxaan soo jeedin doonaa maadada caafimaadka waliba cudurka lagu magacaabo HIV AIDS-ku waa cudur dilaa ah isla markaana awooda inuu baabi'iyo unugyada cadcad ee dhiigga oo loo yaqaan white blood cells ama WBC sidoo kale cudurkan wuxuu ka kooban yahay 4 xaraf oo kala ah acquired immunodeficiency syndrome sidoo kale cudurkan dilayga ah ee loogu yeero AIDS marka uu baabi'iyo unugyada cadcad ee dhiigga kadib waxa luma awoodda difaaca jirka causative agent waxa sababa AIDS-ka cudurka AIDS-ka waxa sababa jeermis loo yaqaan virus waxaana loogu yeeraa HIV AIDS marka la kala qaado wuxuu noqdaa human immunovirus incubation period xilli huuriska qofta oo hay karo xilli huuriska AIDS-ka wuxuu gaaraa 15 sano ilaa 25 sano iyo in ka badan sidoo kale qofka AIDS-ka qaba waxa uu nugul yahay inuu u dhinto shuban madax xanuun iyo waliba qaaxo symptoms of AIDS calaamadaha lagu garto AIDS-ka shuban dhiig yari daciifnimo qandho joogto ah afka oo bukada iyo qufac route of transmission waxyaabaha la isku gudbiyo AIDS-ka marka laba qofood oo midkood ay AIDS qabo ay isku galmoodaan cudurka AIDS-ka waa la isku gudbiyaa haddii la isla isticmaalo qalabyada sida saakiinta maqasyada cirbadaha waa la isku gudbiyaa marka qof AIDS qabo oo uu deeqo qof ayow dhiig waa la isku gudbiyaa hooyada uur kale way u gudbin kartaa cunugeeda caloosha ku jira sidaad ogsoontihiin oo ka dareemi kartiin boorka iga dambeeya asxaabtii iga horeydana ay carbaabeen oo carabka ay ku dhufteen xafladdu waxay ku saabsan tahay arday dhammayday maadooyin kala duwan oo ka qalin bedelanaya taas macnaheedu maahan maadooyinkaas maanta ay shahaadada ka qaadanayaan inay automatic ay dhameeyeen oo shahaado ay ka qaateen laakiin waxay ka dhigan tahay in ay marxalad bila socotay ay soo afjareen ay u furmi doonto marxalado kale oo kala duwan sidaad ogsoontihiinna aqoontu sideedaba ma dhammaato oo ma soo idlaato laakiin waxay leedahay maqaam iyo qofku meeluu ka gaaro qofka haysta shahaadada ugu sarreeyda ee PhD-ga weli wuxuu u baahan yahay aqoon iyo in meeshii uu waxbarashadii ka sii wado halka qofka secondary uu dhameeyana asna uu weli aqoon u sii baahan yahay laakiin way kala marxalad sareeyaan marka bahda maanta qalin jabinaysa waxaan leeyahay dhammaantiin waad maasantiin sidaad soo dadaasheen laakiin waxaan idinkaga baahan yahay in niyadda aan loo sheegin waa la qalin jabiyey niyadda waxa u sheegtiin xogaa meel un baa gaarteen hore u sii socda السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان مرت شرفتا والدينتا أرضيدا كاميرا ماندا قف كستا ماشان فدية يمصب كسو كفدية وحان مركز الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان ربنا يذكر عدارو أدي داهتان يرو دعي أما وحوي شاك وحي sida aad rabteen in noqon waayeen in ka cudaaro haddaan ugu gudagalo khudbadayda insha Allah taala iskuulka Kalkaal International Academy waa iskuul shaqaynayo muddo ku dhawaad 3 sano ah waxaana soo saaray arday aad u tiro badan markii loo fiirsho xagga waxaa loo yaqaan sheeg ardada wax ka fahamtay wax ka baratay waxaan maanta meeshaan ku sagootineynaa ugu hambalyeynaa ku sii dhaweeynaa ku soo dhaweeynaa darajada ay gaareen ugu hambalyeynaa dufcadii saddexaad
oo ka kooban 27 arday waxaan horta koob leenahay hambalyo iyo horumarkiina waa idinku hambalyeynayna horumarka aad gaarteen waxa kale oo leenahay si wada aqoonta meeshaan hadda aan joogno sida ay sheegeen macallimiin hore iga horeysay iyo aqoon-yahano kale iga horeeyay aniga aqoontu heer ay ka leedahay laakiin meel ay ku dhamaato ma lahan waxaan rabaa idin sheego dadka waxay u kala koreeyaan ama ay u kala hooseeyaan waa hadba qofku intuu fahansan yahay haddii qofku uusan waxba fahmin waxba uusan baran wax micnaha uu leeyahay lama arko waxaa ogaatiin bini aadamka iyo waxaa waaye sheeg kuwana waxay leeyihiin waxay cunaan ay leeyihiin kuwana waxay ku socdaan waxaa waaye satellite iyo hub aad wax u dila iyo waxbaa la isku haystaa waxay u kala gaareen adiga qof aad tahay asagana qof waaye laakiin farqiga u dhaxeeya muxuu yahay qof aad tahay asna waa qof farqiga u dhaxeeya muxuu yahay farqiga u dhaxeeya wuxuu yahay qofkaas waxba uu fahmay adiga laakiin waxa ma aadan fahmin farqi kala ahi oo ma jira meesha marka waxaan rabnaa in ardada dhammaantood iyo dhammaan Soomaalida oo dhan inay waxbarashada hamiyad gaar ah u yeelaan waxaan rabaa markii aan aasaasayna iskuulka ama akademiyada aan aasaasayna aniga iyo macallimiinta la shaqeynaysay intuba waxaan heli karnay shaqooyinka dhib yar xaqiiqda marka idin sheego shaqooyinka macallimada waxa lahaa shaqooyinka aqoonta lagu shaqeeyo kuwa ugu adag waa laakiin aan ku heli karna shaqooyin ka fudud shaqada aan qabanayno ayaa waxaan dooranay inaan macallinimo galno oo sababtu maxay ahayd sababtu waxay ahayd in aan soo gaarno meesha maanta aan gaarnay ee meel ka sii wanaagsan oo maxaa waaye in wax nala ka barto waxa annaga aan naqaano annaga kale aan ku intifaacin oo nala qaybsado ayaan ugu talagalnay markaan galaynay shaqadan ilaahay mahad leh waa ku guuleysanay waana aan gaarnay waxaan rabaa inaan idin sheego iskuulka waxaa jirta waxyaabo badan oo macnaha ay sheeg oo fiirsho waxaa jira arday agoon ah waxaan jeclahay si fiican isu dhageysano arday agoon ah oo aan jeclahay inay yihiin 10 arday 10kaas arday iskuulka waxa wax ku baraa free sababta iskuul macnaha dawlad ama hay'ad ma taageerto hay'ad taageerto ma jirto dawlad taageerna ma jirto waxa ku socdaa waxa ardada laga qaado haddana ardadaas agoonta ah ee 10ka arday ah waxaan wax ku barnaa free aan ku barnaa aniga iyo macallimiinta la shaqeeya waxaan mudanahay istaan aaminsanahay in loo sacbiyo aan loo hambalyeeyo kala socotiin marka sababta maxay tahay waxaan dareemaynaa in qof kasta ee Soomaali ah ee wax baranaya in mas'uuliyad saaran tahay hadda ka hor waxa jiray haddaan idin xasuusiyo waxyaaba soo dhacay oo history ah nin ayaa waxa wax bari jiray ilmaha dariskiisa ayuu waxbarashada ka dhiibi jiray markaas dadkii dariska waxay ku dhaheen maxaad u dhiibaysaa su'aalay weydiiyeen wuxuu ku yiri aniga wiilkayga waxbaan baraa wiilkayga ama gabadhayda waxbaan baraa wuxuu yiri wiilkayga haddii aanan kuwa ila degan aanan wax barin wiilkayga markuu wax barto oo weynaado wax barto aqoontiisa bilaadanka siisa saddex loo qaybshaa xilli wax barasho ku jira xilna shaqo ku jira xilna waxa la retired way macnaha ma shaqay karo
بالآدم بسدحاس نوع حلقة مركا وحبرشتان لو جيرو هدان كي وحبركوها كلا عن كترو مركا اللي سوق جارو حلقة الشغلة وأنا ويل كي شغال في عنو هيرو كوي كلا شغال عن نقدان وحاولي سيدو كوبت باله سويت حوالي ما كان عمي غني وعاوي الباب كي فريستايا كاميرا حوق يرى وعيركا سوقا تيردكي كاغا ريوايا marka maxay noqonaysaa in aduguna saad kaaga u badbaadiso aad dhamaan aad macnaha wax wada barto intaad ka awoodi karto marka waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba macallimiinta ila shaqeysa iyo waalidiinta iyo ardadaba aan u hambaliyeeyo iraado hambaliyo hore socod wanaagsan aad iyo aad u mahadsantihiin wiilasha iyo gabdhaha aad iyo quruxda badan oo soo maanta soo diyaarshay waxa waaye aad iyo aad idinkaga mahad celinaa quruxdiina iyo wanaaggiina iyo soo dhaweyntiina iyo kasoo qaybgalkiina waa idinkaga mahad celinaa waxaan rabaa marka inaan khudbadeeda ku soo koobo hal qiso yar culimmadan waa joogtaa نبي آدم مركي لصوص على عمل السمية أو لما أنت وحنا كسوتشنا آدم كسوتشنا آدم مركي السمية سأقتي ملائكة وحال الأس الجودة سؤالي ويديين ضدك معناها إلهي ويديين وحكم له سام بالآدم الأس الجودة هنا أو لقى أبوري أنا كنا لك أبوري محاول نار iyo wax kasi wanaagsan ama marka iyo nuur marka waxa la yiri waxaad ma aqoon ayuu yaqaan leey waxa dhan macquul ma loo karto soo ku yaqaana waxa yar oo ilaahay oo baray ayaa loo keenay waxa la yiri kan ma taqaana shayga ma qaanay kan ma naqaan asiga loo yiri cali sheeg markaas wuxuu yiri kan digsiyaal laha kan microphone laha kan shaatiyaal laha markaas waxa la sujuuday saawqtiin shaydaan inta marka laga reebo inta kale sujuudeen waxay ugu sujuudeen maxay yihiin waa aqoonta waxaan dhahnaa dadka reemiga markii reemiga loo laabto waxay rataan awr mataqaanina malaya تبان ماشى فدي ورمي قلنا ملاه أورت مركل الرأي وحال سميا وحال الرأسي اسكمدا معناها هدي على البالانس اللي قاعدين بالانس هدان اللي قاعدين فتيجي وحوس سمينا ودلينا دليل اسمه تغني ما تغني ملاه ودلينا صوت دلينا محاوي وحسارن ما أكا ما الله وحكسارن كنتم جرام كسارن ما الله وحكسارن 20 جرام كنت جرام مركب محوج جدا لا تجرام وجدنا مركب حي سويان حيدهان وديلسترينا وحادي شيء بالآلنك حضوصا وحابرا حدانا وحابرا شركة كله هي أقوم تادو معناها من نقرايان بالانس من نقرايان شركنا وكوينها هيسا maskaxduna waa koobnaanaysa wax yar ku jira wax yar ayaa ku jira jirki kale waa weynaaday waxaad ku aragtiin qof weyn oo macnaha ay shay marka muuqaalkiisa fiiriso qof aad weyn ah ayaa markaad la sheekaysato waxaad ka dareemaysaa inuu aqligiisu kooban yahay aqliga macnaha kii ilaahay baxshay waa gaarkiisa laakiin waxay qolada sayniska waxay dhahaan aqliga 30% ayaa lagu kordhi karaa haddii qofka wax barto macnaha 70% aqliga waa nature waa wax dabiici ah 30% waxay dhahaan waa lagu kordhi karaa haddii qofku oo wax fahmo sababtu maxay tahay magaalada markaad soo gasho tusaalada soo qaadan oo aadan waxba ka aqoon aqligaagu ma ku sheegay gurigaaga meesha ku yaal
يا من كوشة كورجا يمشي كويا لما كوشة أغلى يارو على مركا صور ميانا صور متى أغلى ولا هذا لكن ماشي كويا لما تقاني وحاول بهانت هاي إن أدبرت الساعة أغلى وسكان مركا وحاربة مركا قدام بيسا ardada iyo macallimiinta iyo maamulka iyo kasoo qaybgalayaasha iyo kaamiramanadaba mar kale inaan yiraahdo hambalyo khudbadaydii waxa waaye intaasaan ku soo koobaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh haddaad ku badshay gaar lahaada